السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالها قلبك يا قلوبتك حرنا وين السلام إنا وقت أدوان أكسن ينور في عن بان ذي رتشين إنا يكسر دوادا كنال كينا عافيماتك إركزرك عافيماتك غويسك مقالك وحاي نكسو قادنا إنا هويني إنوصو قرتي قرال ورادين يساتلو وين ذي وحاي كبيرو ذي قرال كذا ما يتلمامت waxaan ku xidhnahay bay tiri oo inta badan uu raacraciya talooyinka soo siisaan bulshada guud ahaan gaar ahaan dadka markaa idinka soo codsada bariyahan dambe waxaan tabaynaa bay tiri haweenaydani arrimihii dhinaca qoyska ayaa waxyaabo badan oo runtii qalbigayga xadxantaynaya ayaanaan mararka qaar ku arag bay tiri waanu jeclaystay inaan markaa aan idinka codsado waxaan doonayaa bay tiri qaabkan sare ugu qaadi lahaa nafaqaynta ama aanu nafaqayn lahaa bay tiri saygayga ama odaygayga ama ninka marka aanu nolosha wada wadaagayno aan nafaqadiisa sare u qaadi lahaa qaabka loo kobciyo meelaha ugu fiican ee laga heli karo ayaad ii soo sheegi doontaa bay tiri waxaan ku noolahay bay tilmaamaysaa haweenaydani waa maaha kuma noolin wadamada qurbaha laakiin waxyaabo laga heli kara dhinaca wadankii ayaan doonayaa bay tiri aad bay u mahadsan tahay haweenayda ashrafta leh qoraalka ay noo soo qortayna way ku mahadsan tahay dabcan si guud baynu talooyinka dhawaanahan dambe u bixinaynay ee si specifica umaynaan daabanayn arrimaha qoyska laakiin insha Allah wixii ka dambeeya imika arrimaha qoyska iyo kuwa dhalinyarta xanuunada afeeyayba aad baynu uga hadli doonaa inta Ilaahay naga waafajiyo su'aalaha noo soo weydiisaan na public baynu ka dhigi doonaa sida ay u badan yihiin si ay bulshadu guud ahaan uga wada faa'iideystaan haddaynu ku soo dhawaano haweenaydani qaabka ay u kobcinayso ama ay u nafaqaynayso saygeeda iyo nafaqada jirkiisa ay sare ugu qaadaysaa dabcan marka jirka la nafaqaynayo waxa qurux badan in laba mitood la isticmaalo haweenayda kijada ku jirta ee cuntada samaynaysa cuntada qaabka ay u xulanayso waa wadiiqo iyada la marayo wadiiqada kale loo baahan yahay waa marka la soo iibinayo qudheeda ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa maxaa la soo iibinayaa ee suuqa laga soo iibsanaya labada wadiiqo ayaa inta badan saldhig waxay u yihiin waxa dadku ay quudanayaan ee hadhowta ay isticmaalayaan ee digestive-kooda iyo markaas uurku jirtooda ku dhacaya ee ridqaya ee shiidanayaan ee nafaqada ka helayaan haddaba waxaa jiraya inta badan waxaynu ku salaynaa ama aynu ku bays garaynaa dabaqada dhexe haweenaydu dabcan inooma soo jeedin qofkuna inta badan ma soo xuso inuu soo xusana ma habboona oo dabcan muhiim ma aha laakiin markaynu talo bixinayno waxaynu ku dhadhaweynaa wax qof kasta dabaqada sare ama dadka inta badan noloshoodu fiican tahay inay heli karaan dadka nolosha dhexena ay heli karaan dadka xataa noloshoodu hooseysaana ay heli karaan marka jirka la nafaqaynayo siyaabo badan baa loo nafaqeeyaa waxa kaloo jiraya qofku isagoo awood leh oo jirkiisu culus yahay ayaa macdanaha qaar ku yaraan karaan faytamiinada qaar ku yaraan karaan jirkiisa qaar ay nuglaan karaan marka waxa loo baahan yahay waxa horta marka koowaad qurux badan in la ogaado maxaa qofku aad ugu baahan yahay ama jirkiisa maxaa ka yar ama macdanta iyo faytamiinka jirka ka yari waa sidee arrinta haddaynu doonayno inaynu ogaanana ka fursan mayso in qofkii la arko oo physical examination laga qaado oo chemical examination laga qaado oo diagnosis lagu sameeyo oo la eego oo interview lala yeesho si markaa qofka inta badan waxyaabaha uu dareemo haddii hurdadu ku yar tahay faytamiino ka yar baa jira haddii inta badan uu daalo xilliyada qaar faytamiino ka yar baa jira haddii awoodiisuba ay badan tahay laakiin jirkiisu kululaado wax ku badan baa jiri kara marka haddii inta badan waxay ku xidhnaanaysaa qofkii in la helo ayaa qurux badan oo interview lala yeesho haddaba haddaynu haweenayda taladeeda si guud aynu ula talino dariiqooyinkan ayaad ugu roonaan doontaa saygaaga waxaananu rajaynaynaa insha Allah inay ku ahaato midaad kaga kaafido waxyaabo badan waxaad soo qaadanaysaa cuntooyinka loo yaqaano cereal food ama inta badan waa grainska waa midhaha cuntooyinka midhaha ee digiraha noocyadooda kala duwan haddaad wadankii joogto
digir asliya ayaa jira oo dabeeciya ka gaduudan ha ahaato digir cadka ha ahaato waa soo qaadanaysaan waxaana filayaa qarash ahaan inaanay sii badnayn oo lacag fara badan oo qofku markaa madax xanuuna inaanay bahayn digiraha inta badan bulshadeenu aad bay u dhayalsataa laakiin faa'iidooyin badan bay leeyihiin macdanuhu way ku badan yihiin faytamiinaduna waa laga helaa dheefshiidkina way wanaagsan yihiin waad soo qaadanaysaa xilliga habeenkii ayaad u samayn doontaa weliba digirta guduudan caanana waad ugu daraysaa waxaad isku dayi doontaa inaad arrintaa u joogtayso digirtaasi awood badan bay dhalisaa lafahay u fiican tahay awoodda jidhkay u fiican tahay energy bay u fiican tahay waana full of proteins minerals iyo vitamins bay leedahay marka arrintaa xusuusnow taasi waa qodobka koowaad waa digirka guduudan ama cas inaad habeenkii u samayso si fiican marka aad ugu habayso caanahaana aad ugu darto oo xilliga habeenkii aad siisaa way ka qayb qaadanaysaa jidhkiisu inuu aad u nafaqaysto qodobka labaad waa inaad heli karta caano fresha oo dabeeciya oo laga soo lisay meersiyada xoolaha aynu dhaqanno ayaa iyaguna waxay u hagaajin doonaan inay markaa u kobciyaan dhiigga iyo dareeraha iyo enerjiga iyo lafaha iyo awoodda oo dhan bay u hagaajin doonaan biidnillaah haddii ilaahay markaas ogolaado oo markaa uu gacan ku siiyo arrintaasi way xoogaysanaysaa waana runtii wax scientifically la ogaaday oo caanaha biyuurka ah ee nadiifta ahi qofka aad bay u bedelaan dhinac kasta arrinta labaad ee kale waa lowsaska lowsku inta badan laba nooc baa ugu fiican kuwa noocyo badan yahay aad buu noocyo badan yahay laakiin nooca la yidhaahdo binitka ama walnutska inaad kaa labada aad qaadato labada aad juice uga dhigto oo subaxii marka uu quraacanayo ayaad hal koob ama laba koob aad siin kartaa haddii aad awoodo inta soo qaadata lowskaas oo markaa habeenkii aad radiso ayaad subaxii cabitaan uga samaynaysaa xataa qadada marka uu isticmaalaya cabitaan baad uga samayn kartaa taasina waxa ay keenaysaa inay dhalato energy aad u badan iyo awoodda jidhkiisu inay aad u korodho inuu markaa ahaado qof aad u firfircoon macdanaha uu leeyahay in lowsku laga helo inta badan waxaa dila inuu muddo badan yaalla iyo in dab la geliyo laakiin haddii uu fresh yahay lowsku dabna aanad gelin biyo yar aad ku radiso galka aad ka saarto aad jiito caano fiican oo brotiin wacan leh oo energy fiican leh oo faytamiino markaa kala duwan ay ku jiraan buu ka heli doonaa taana insha Allah waad samayn doontaa oo waad isticmaali doontaa waad siin doontaa arrintaana arrinta kale waa fruitiska iyo vegetableska waa qudaarta midhaha iyo qudaarta caleenta ee inta badan cagaaran labadaana qalbiga iyo laabta ayaad ka ogaan doontaa waxaa laga helaa macdano waxaana laga helaa faytamiino si imika specifically inaynu qudaar gooni aynu kugu magacawno waa laga yaabaa inay adkaato in helitaankeedu kuwa aadka laga yaabo inay borotiinadeeda ama faytamiinadeedu ay sii badan yihiin laakiin kuwa heli karto qudaartu inta badan waxyaabo badan bay ka midaysan yihiin fruitiska iyo vegetablesku labaduba inta badan tomatoska waxay ka qayb qaadataa inay qofka energizing ay ka dhigto qudaarta iyaguna sidoo kale kaarootada iyo kaabashka iyo kuwaasina waa kuwa u wanaagsan jidhka ibni aadanka guud ahaan gaar ahaan inay markaa ay nourishmentis ay sameeyaan haddaba kuwaana waad isticmaali doontaa oo waad siin doontaa oo weliba waad ugu roonaan doontaa fruitiska cabitaan inaad uga dhigto ama tufaaxa ama afagaadhaha ama markaa cinabka ama markaa kad helayso ha ahaato hadday noqoto maangaha ama babayga kuwaasina waxay ka qayb qaadanayaan in nafaqada jidhka ay aad u soo celiyaan ugu dambayn haddaad helayso usbuucii 2 goor ama 3 goor hilibka kalluunka gaar ahaan kalluunka loo yaqaano toona noociisa dabeeciga ama freshka ama salmonka waa inuu haddii aad samayn karto waa u samayn kartaa ama aad awoodo inaad usbuucii 2 goor aad xilli aad ka qaadataan ama aad u samayso taasina energy iyo tamar aad u badan bay dhalisaa oo qofka jidhkiisa ay gelisaa haddaba intaasaad siisaa waxay aad iyo aad u bedeli doontaa nafaqada jidhka waxaana aad waxooga bedeli doontaa jidhkiisa waxaanu isku dayi doonaa nasasho fara badan inuu qaato warwarka iyo waxyaabaha inuu iska ilaaliyo oo markaa xasilooni iyo deganaansho uu ku waaro inahaas ayaynu ku soo ururinaynaa waynu kaga tegaynaa muuqaalkii aadka u koobnaa waxa fikir iyo afkaar aad qabtaan nala soo wadaago noo soo sheega una sii sheergareeya bulshadeena kale si ay muuqaalada talooyinka ee ku saabsan arrimaha qoyska arrimaha bulshada
arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dhallinyarta waxyaabaha qaar aynu uga dignaba si ay u helaan fariimaheenna sii gaadhsiiya. waxaan idiin rajaynaynaa nolol taama, caafimaad iyo mustaqbal ifaya. fii amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.